wax aad dalka aad ka talinayso ma lahan qaa'inaad tahay qaa'in wadanaad tahay waxaa istaahishaa in maxkamad lagu soo saaro badda Soomaaliya ayaa waxaa 20 kilomitir la siiyay dalka Itoobiya Somaliland maamul goboleed waaye ma ahan dal mana saxiixi kartid Xasan Sheikh oo aawade am heshiis waa ku dhex jirtaa naftirkaaga يا wax soo boost garis uma jeedaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo YouTube channel ka daawanaysan waa Ibn Abubakar fadlan YouTube hadaad ka cusub tahay subscribe saar like saar comment soo bix siina share garee aad u mahadsan tahay maanta idin moodo reaction idin moodo video maala yaacna waxaan idin wadaa video muhiim ah wuxuu muhiim u yahay dalka Soomaaliya wuxuu muhiim u yahay dadka Soomaaliya wuxuu muhiim u yahay qof kasta oo muslim sheeganayo maxaa yeelay shalay oo ahayd kooda bisha koowaad 2024 waxaa heshiis kala dhex maray Somaliland iyo Ethiopia heshiiskaas muxuu yahay badda Soomaaliya ayaa waxaa 20 kilomitir la siiyay dalka Ethiopia oo Abiy Ahmed iyo Muuse Bixi ninka oo madaxweyne isku sheegay muddo xileedkiisa u dhamaaday uu leeyahay 20 kilomitir ayaan ku siinay waxaan ka talinayaa dadka dalka wax aad dalka aad ka talinayso ma lahan qaa'inaad tahay qaa'in wadanaad tahay waxaa istaahishaa in maxkamad lagu soo saaro waxaad istaahishaa in maxkamad lagu soo saaro aniga weligii siyaasad ma dhexgelin weligii siyaasad kamaana soo hadleen laakiin maanta waxaan siyaasad uga hadlooyaa maxay aheedo dhiiga ay kacay waa maqli jirteen dhiiga ay kacay laakiin balse maanta wadaniyadnimada aan igu jirto سادرتت يا فيديو صدوه إلا داو فيديو كان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo sanadkii 2024 uu kow yahay waxaan nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia saawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan inaga Somalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ba sidii aanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay aqoonsadaan oo qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kilomitir xeebta ciidamadooda inuu ogolahay deegaan ciidamadoodu waa liis waa kiro ma dhul la siinay blaashna ma waxaan marayaa arintaasi inay tahay mid labada dalba u dana si xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan inagu waxaan leenahay badii Ethiopia waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga balan qaadeen insha Allah berbera waxa ka mid noqon doontaa dekadaha ay Ethiopia soo marayso wixii ay soo dejinayso qayb ka mid ah kolba inta aanu horumarino aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha insha Allah dhawaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horeeyay ee Soomaaliland aqoonsada anaguna aanu noqono dalkii u horeeyay ee isku ogolaada 20 kilomitir badda iyo wixii aad iyo aad baa wax dalka aad ka talinayso ma lahan wax dalka aad ka tahay ma lahan Somaliland maamul goboleed waaye ma ahan dal mana saxiixi kartid hadda waa kana fiir madaxweynaha hor farmaajo wuxuu soo dhigay page-kiisa boskan uu soo dhigay sidoo kale Xasan Cali Khayr wuxuu soo dhigay waa kana sidoo kale madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hore Roble wuxuu soo dhigay ujeedaa Xasan Sheikh oo aawade am heshiis waa ku dhex jirtaa naftirkaaga ya wax soo boost garis uma jeedaan ama labadiin heshiis idin ka dhaxeeyo والله ثم والله ما اسكو تلماما مانت ما اسكو تلماما Soomaaliya shalay
Kenya haddii la siiyey maantana Ethiopia maa la siinaa waxa fiiri dalka deriska leh waay Eritrea waxay ugu tagi weyse Eritrea waxay ugu tagi weyse Eritrea baday leedahay haye maxay ahaydo yacni Soomaali dad isku filan ma haysato ciidan isku filan ma haysato maxay ahaydo hub isku filan ma haysto uu leeyahay wallahi 1977 dagaal ka dhacay xusuustaas ya idinkuma jirto oo maleena ma xusuusatiin wallahi thumma wallahi haddii Soomaali kacdo waxaan hubaa in Addis Ababa gacanta lagu dhigi doono mar haddii Soomaali kacdo war Ethiopia falkan awadin joojiya haddii si joojin weysaan wax ayaad arki doontaan ya Soomaalinim haddii kugu jirto maanta commenti kaliya waxaad ku soo qortaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato commenti ku soo qor ninka la yiraahdo Muuse Bixin asigana xisaabtan ayaa dhex mari doontaa asiga iyo dad maxay ahaydo dalka dadka madaxa ka ah hadda ma baarlamaanka maanta way shirooyin wixii go'aan laga soo saaro waan idin la soo socodsiin doonaa insha Allah waana mahadsantiin sida qurux banaad video u daawateen video si xuntaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh